لله horta marka hore aan ka faa'iideysanayo munaasabadan aanu la kulannay waxaan soo dhaweynaynaa diyaaradda Al-Carabiya waxaan halkan uga mahad celinaynaa intii ka shaqeysay wasaaradda hawada iyo intii kale ka shaqeysayba waan uga mahad celinaynaa haddana ka eegno xagga madax bannaanida iyo ictiraafka heshiis kasta oo caalamiya oo aynu la galno amba dawlad amba shirkad wuxuu ka turjumayaa madax bannaanideena oo inoo dhaweynayaan haddii aan u gudbo safarka yagan saaka waxaan ka soo noqonnay safar shaqo ayaan ka soo noqonnay waanu kaga nimi waddanka Imaaraadka intii aanu joognay waxaanu fursad u helnay inaanu la kulanno dawladda Imaaraadka oo aanu ka wada hadalno saawarteena kala saxeexano heshiis la xiriira fulinta mashaariicda horumarka ee berigii hore aynu ku heshiinay ay kow ka tahay wadada isku xidha Berbera iyo Wajaale iyo madaarka madaniga ee Berbera iyada lafteeda waxaanu la kulannay shirkadda DP World oo aanu iska xog wareysanay halkii xaaladdu marayso iyo horumarka ilaa hadda la sameeyay marka si fiican ay labada shirbaba ay noogu dhaceen alxamdulillah waxaan rajaynaynaa muddo 3 casho gudahooda in injineeradu ay yimaadaan insha Allah bilaabi doona hawsha ugu horeysa ee xagga naqshadeynta jidka iyo madaarkaba aad bay u mahadsantihiin